barnaamijku yahay agaasintii madalo Gondoob oo ka saabsanay horumarka dhaqaalaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee ka goobday magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Kulanku iyo waliba uu sahay ku dood wadaage waan waliba ku qeyb galay mas'uuliyiin ku tirsan Koonfur Galbeed geebashal duwan ee bulshada iyo marti sharaf yoona su'aalo ka saabsanay sidii loo horumari lahaa dhaqaalaha Koonfur Galbeed la weydiiyay wasiir ku tirsan Koonfur Galbeed. Hana kumada dadka u qeyb galay madaliya su'aalo weydiiyay martidii la ka azumi kulanka walina dhammaantii su'aalahaasi qoseeyana kobiyowka dhaqaalaha maaliyadeed ee Koonfur Galbeed ankuurey xoolaha iyo xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga garaawna Koonfur Galbeed markan lamada qaybood oo sida gooniga aan haysan way waahuli ka faa'iideysiga badimadeer xoolaha iyo mika dhaajarnahay beeroy soo ku warhayna dadkii qaybo iska shaqalayeen bulshooyinkii oo xoolaha xanaaneen iyo beeroy ma hawada galeen magaalooyinkii magaalada Roogan wasaaradda oo xanaanada xoolaha noo maqanto wasaaradda beeraha roogta marka maadaama dhaqaalay meel ku horumari lahayd kumadata dadkii shaqadaas lahaayeen magaalada hagaleen oo hay'ado kala aan gacan horsadahaayeen oo doorkaas maqanyo wasaaradda doorsheemayo ma in qorshaysan si dhaqaalay korleen qaad wasaaradda maaliyadda haday ma sheegay wasiirka inay anshuur la qaado beerole lankolaha gool anshuuro qofka ma baahan badarkooda la anshuuro hadii beero wala hangona anshuurta inta ku qoys doorka maamulka ma qorshaysan si dhaqaalay leen kobci wasaaradda qorsheynta ma weydiiyeen qorshiga guud oo horumarinta Koonfur Galbeed dhaqaalaha ma in ku degsan meelaha koobe eedamaas farxad inoo tahay maanta inaan soo hor fadhiisataan shacabkiina iyo dadka wasiir u heedeen oo madax u heedeen inaad cabashadooda dhageysataan sidoo kale waxa u mahad celinayaa Gondoob oo maanta noo suurta gelisay in wasiirada ay soo hor fadhiisayaan aan weydiino wixii su'aalo su'aalooyin commentiga isugu jira su'aasha ugu horeysa waxaan weydiinaa wasiirka maaliyadda wasiir waxaa jira dad shacab ah oo gawaari leh guryo leh ugu yaraan gaari dameer xataa maxaa la dhahayaa qoryo iyo wax ku sameeysta marka waxay dhaheen meel walba canshuur looga qaadaya canshuurta guriyada waa la qaadaya gawaarida waa la qaadaya miisaska xataa canshuur laga qaadaya hooyadaas canshuurta maalin walba laga qaadaya bil walba laga qaadaya hal mir uma soo laabato ilmeedu waxbarasho free ma haystaan koronto free ma haystaan biyo free ma haystaan يعني maxay ka faa'iideysaa waxay ku leedahay dawladnimadii dadka uma bisla dawladnimadii si fiican uma fahansana 30 sano burburay hooyooyinka soo mareen dawladii hore waa la ogaa oo waxyaabo badan oo firiye bixin jirtay oo canshuurta day bixiyaan lagu heli jiray wasiir maxaa sanadkan idinga qorshaysan hooyooyinkaas oo liinta magaalada ku gaday 2000 laga qaaday maalin walba wixii ku baxayeen aysan ogeyn xataa loo sharxeen intii la fadhiista la yiraahdo lacagtan laga qaaday wada lagu dhisay lacagtan laga qaaday askari habeenkii ku wardeena la siina waxaas oo dhan laga ma dhaadhicin training looma sameeynin wacyigelin looma sameeynin hooyadan askariya loo soo diray 5 kun xoog looga qaaday maalin walba waa taagantahay miskiin waa marka canshuurahaas la qaaday wasiir xagee galayaan shacabka maxaa looga qaban doonaa maxaa idinga qorshaysan wasiirka wasaaradda maaliyadda Ahmed Mohamed Hussein wasiirka beero Mustafa Ahmed Iidow wasiirka qorsheynta Ali Abdi Macalin oo ku tirsan golo wasiirada Koonfur Galbeed iyo Yusuf Ibrahim Abdurrahman oo ay aqoon-yahan ya ku jawaabay dhammaan su'aalooyinka la weydiiyay aridil fuliyo qaar kumade oo wali jaray una 3% kumade una ka kaaban mashaariicdan oo UN JBLG leero oo degmada inta badan fuliyaas oo dhismooyinkan ka badan la sameeyo waliba sharci boolkiiba 6 iyo wasaaradda maaliyadda account-kan ka shamna hadii 1 milyan hadii ku badanta 3% kuma dawna account ka shimno markaas ku dib meel raaya donorski oo naqshabay madan ma deetridi oo mashaariic kornigay intii wada oo maana mashaariidaas interroga la kasamay baalka la kasamay laakiin percentage wala tabarti wasaaradda maaliyadda tabarti hayti meel raay ka biyayt waa sax waay wala ku gaabinay social sector ki hadii hadalayd wal barashadii caafimaadkii dhammaan meel raay gaabisa jar ama infrastructure ki laakiin meel raay wali madeerna awoodo in capacity oo anshuurtaan inay falnaata ولا يوم الرأي أمنية كورنا ديردون لكن ولسه شيء أمنية سن كجيفتم يارد بيدو ميرس فدان كمراسن أول كاست ما نجيك الحمد لله ولين ملاي بيدو مقالين كوي بينك أمني بدون دتك أمنية سوقهاي عشور تيجك سوقهاي وأنا شيء إنكم يمسوا أصلا ما أنا أو شغلك أو فضي ولا لما كلنا إن شاء الله ويدا مسترى طبعا دتك عشور تأيد من جيل ما يلرأي ويقول لك وزير كمالي $، ويجي يثبت دليل دتبا عشور بيع أنت كجرة لكن ما يلرأي سنة شيء بقول هراو ما أنا عشور أنا لقى هذا ما هراو وأنا ولك جرت دنتين
iyo meel muwaadininnimada naftirshe social contract oo in sheegada dawladda iyo ku dhaxeeyay muwaadinka waa canshuurta ku imaana naftirshe qayb oo eed muhiim ah marka insha Allah may barajay in oo developments badan kala ku wada shaqeey doona canshuurta meel raay mid deegaanada dhan diirta oo neefalnaatan wal badan kala oo deegaanka dangeena ka qabso strategic plan ayaa jiro dawladda koonfur galbeed ay leedahay awdaad qorsheyn sameysay 2021 up 2025 ka waa 5 sano waaye waxaan bees u ah 4 tiirarka ugu horay ugu muhiimsan waxa waa economic development-ga ah sidaas darteeda meelaha waxa muhiim noo ah in strategic plan u helno dawladda koonfur galbeed oo ka shaqeysa strategic plan-kaas wasaaradda qorsheynta sameysay wasaaradaha khusay ama wasaaradaha dawladda koonfur galbeed ayagana sector gooni ay leeyihiin dadka su'aasha oo weydiiyay xataa Mustafa wasiirka maaliyadda qayb ka mid ah wasaaradda beeraha way qusaysay dadka la canshuuraya ama beeraleyda ah horta dadkan markay ka soo tagaan beertoodii duruuf walba ha ka soo wado ee magaalada imaadaan waxay noqonayaan IDPs dadka inaysan magaalada baadiyaha aysan ka soo tagin ee beertooda tacbadaan duruufo badan sababi karo meelod yaa isla xiriirta si su'aalaas aanan ku jawaabo inay isla taxliilin oo isla fiirina kow may waha faamilada ama qoysaska deegaanada koonfur galbeed su'aal hoob isku weydiino neerna xasaarayna hoobeeta beeraleyda hoobeeta xoolo jarti hoobeeta dhaqaala beeroykiisho iyo xoolayaha ku saareena meelo ku bilaawda dhaqaala sala ku hormariyo korooban ku dawaana fadana familka ku bilaawan barnaamijkan oo hay kolon guduhu way sidii lankobi lahay dagaalo koonfur galbeed ya waliba usahay kinka horeey oo la gobada sanadku 2028 maadaama guutaan dalka Soomaaliya ku dhiyay isbedel waana la rajayahay intii soo koba dagaalaga dalka Soomaaliya guud ahaan Maxamed Ali Baaqo warbaahinta Baay Bakool Baydhabo